بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxa barnaamijkeen marti noogu ah Qodan Sheekh Axmed oo kamid ah shacabka reer Ogaadeniya oo raba inay ka dhiibtaan aragtidooda ku aadan qoysta shidaalka Ogaadeniya iyo boobka ay isku kaalmeysanayaan dawladda Djibouti gumaysiga Ethiopia iyo waliba shirkadaha shisheeye hodan halgan ku soo dhaw waad mahadsan tahay mudane waan dhawa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka hadlayaa maanta topic ku saabsan khayraadka Ogaadeniya boobitaanka saddexda wadan ee shisheeyuhu ay boobahayaan marka horeysa waxaan la hadlayaa dhalinyarada reer Ogaadeniya ummadda reer Ogaadeniya la hadlayaa waxaan idin leeyahay dhalinyarada reer Ogaadeniya khayraadkeena iyo batroolkeena iyo khayraad nimcadeena horeyna inaga u difaacanayna eegana inaan difaacana la rabo difaac si laba laabno محافظ iyo mucaaradba inaan ma aragtay khayraadkeena aan ilaashano kuwa gumaysigu maskaxda ka bedelay waxa loo baahan yahay jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya inay iskarab taagtaan way dhaaftay wixii hore ee la isku haystay laakiin dawladda saddexaad bay noo boobtamaya waa inaynu hadda isku mowqif wada ahaano meel ka soo wada jeedsano waxaana aan ilaashano difaacna dalkeena Ethiopia 100 sano ayaan saynay waan isnaqaanaa ku sii dheeraan mahayo waxaan leeyahay China ashirkii shalay lagu dhigay halkiiba ku yaala ku ka daran oo lama ilaawana lagu dhigi oo taariikh filimada Hollywoodka lagu dhigo Ismaaciil Cumar Geela ay soo haray Ismaaciil Cumar Geela waxaan ku leeyahay dalka adal saddexaad oo shisheeye aad ugu yeedhisay laba wadan oo shisheeye ah oo diin iyo dad iyo dad midna aan wadaagin aad ugu yeedhayso adaa Soomaali ah adaa ila leh anaa kula leh waad khaldantay aad iyo aad baad u khaldantay waa inaad awaaj ka bixisaa khaladkaaga inaad ka soo noqotaa sixitaan waa inaad samaysaa shacabka reer Djibouti baan iyagana la hadlayaa shacabka reer Djibouti oo Soomaali baynu nahay Soomaalina way isu marti way isu soo hoyataa way ismartidaa way wada cuntaa way wada cabtaa waxba ma kala lihiin Soomaali baynu nahay dhaqan laynagu yaqaanaynu leenahay waa inaydan ka tagin midaas waxaan u soo noqonayaa dhalinyarada reer Ogaadeniya waad ogtihiin taariikhda adduunka qofkii wax bartay wax walba waad ogtihiin Mareykan ummad baa ku noolay waa la xaaqay maanta ma jiraan Australia dad baa ku noolaa waa la xaaqay dad kala ku nool maanta haddaad maanta kaba qaado u noqotaan gumaysiga oo dalkiina aad shisheeye gacanta u gelisaan sida kuwa loo xaaqay baa idin kara la idin